ومر kale iyo barnaamijkeena tala dhakhtar. Barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo soonka. Sidaynu ognahay waxayna soo qaabishay bishii barakada badnayd, bishii khayrka badnayd, bishii caafimaadka badnayd, bishii Ramadaan ayayna soo qaabishay. Ilaahay khayrkeeda hayna siiyo. Waxaynu ka hadli doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira soonka bisha Ramadaan la soomo, iyadoon ognahay in bisha Ramadaan ay leedahay faa'iidooyin aad u badan. laakiin halkan waxaynu kaga hadli doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee ku soo arooray bisha soonka ama soonka bisha Ramadaan. haddii aad ku cusub tahay channelka ka mid noqo asxaabta channelka, lana wadaag barnaamijyada caafimaad ee soo dhigno asxaabta kale si ay uga faa'iidaystaan. aad baad mahadsantihiin. bisha Ramadaan maaha oo keliya bil cibaado, sidoo kale waa bil caafimaad. halkan waxaynu kaga hadli doonaa soonka iyo xiriirka ka dhexeeya caafimaadka jidhka bini'aadamka. daraasado caafimaad oo laga sameeyay saameynta soonku ku yeesho caafimaadka qofka ayaa waxaa lagu ogaaday qodobadan soo socda. 1. soonka iyo miisaan dhimidda. maadaama oo caloosha qofku madhan tahay, sidaa darteed aanay jirin meel laga soo saaro awoodda ama shidaalka jidhka waxaa la amrayaa si loo helo awooddii qofku ku shaqayn lahaa in la gubo, lagana soo baxo tamarta kaydka jidhka sida baruurta ku kaydsan jidhkeena. taasina waxay leedahay faa'iido dhanka miisaan dhimidda ah. calooshaadu waxay soo shaqaynaysaa muddo 12 bilood ah oo ayna marna istaagin shaqadeedu, iyana soonku wuxuu u yahay waqti ay nasato. soonku wuxuu yareeyaa xanuunada sida aadka ah inoogu soo badanaya ee ay kow ka yihiin macaanka, dhiigkarka, wadna xanuunka. dadka macaanka qabana wuxuu u yahay mid waxtar leh. soonku waxa uu xoojiyaa maadada loo yaqaan insulin ee laga soo saaro ganaca. maadadani waxa ay kordhisaa awoodda waxaanay awood u leedahay maadadan insulintu inay sokorta dhiigga ka qaado oo ay geyso xubnaha jidhku ka kooban yahay. sidaa daraaddeed soonku waxa uu yareeyaa iska caabinta insulinta ee jidhka oo loo yaqaano insulin resistance, waxaanu kor u qaadaa xakamaynta sokorta dhiigga. soonku wuxuu kordhiyaa shaqada maskaxda. inaad cunnada ka soontaa waxay xoojisaa shaqada maskaxda, waxaana la soo daayaa maado la yidhaahdo brain derived neurotrophic factor BDNF, kaasoo shaqadiisu tahay inuu kordhiyo caafimaad qabka unugyada maskaxda ee neuronska la yidhaahdo. ka hortagna wuxuu u yahay xanuunada ay ka mid yihiin asaasaqa iyo parkinsonismka. soonka iyo difaaca jidhka. soonku wuxuu yareeyaa sumaha jidhka soo geli lahaa, taasina waxay hoos u dhigtaa caabuqa badan ee jidhka. ugu dambeyn, wuxuu dib u dhigaa gabowga iyo dheeraynta, waxaana uu dheereeyaa cimriga ama waxa uu qofka ka dhigaa sidii qof daayir. dhowr daraasadood oo la sameeyay waxay sheegayaan in soonku uu xoojiyo awoodda jidhka, taasoo qofka keenaysa inuu muddo sii noolaado. iyadoona ognahay in qadarka ilaahay meeshiisa jiro, haddana waxa uu xoojiyaa awoodda jidheed, taasoo qofka u saamaxaysa inuu jidhkiisu ahaado mid caafimaad qaba muddana uu noolaado. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. la wadaaga asxaabta. wabilaahi towfiiq. يا